weligaa ma maqashay ciyaaryaankii daadiyey 1 litar oo dhiig ah oo ku dhowaaday inuu dhinto balse diiday in la beddelo aan kuu sheego mid ka mid ah sheekooyinka ugu yaabka badan uguna dhiigga iyo xamaasadda badan ee taariikhda adduunka kubadda cagta marka ay timaado sannaddii 1990kii intii lagu jiray isreebka koobka adduunka ee sannadaasi ka dhacayay Talyaaniga ayaa xulka qaranka ee Sweden waxay wajahayeen xulka Ingiriiska intii ay ciyaartu socotay waxa madax dhaawac uu ka soo gaaray ciyaaryahanka u dhashay dalka Ingiriiska ee Baja waxaana uu bilaabay in dhiigbax markaasi fara badan uu ka yimaado madaxiisa halkii uu beddel lagu sameyn lahaa xidigani dhakhtarka kooxda Ingiriiska ayaa madaxa ugu xiray faashad wuxuuna dhahay ciyaarta sii wado markii ay ciyaartu dhammaatay Baja madaxiisa ayaa sii dhiigbaxay ilaa wajigiisa iyo dharkiisa ay qariyeen dhiigga sida aad u jeedaan ciyaarta kadib dhakhtarka Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in Baja uu ka lumay in ka badan 1 litar oo dhiig ah isla markaana uu ku dhowaaday inuu ku dhinto intii ay socotay ciyaarta dhiigbax laakiin wuu diiday in la beddelo dhacdadaani kadib waxaa la soo saaray sharci ka mamnuucaya ciyaaryahanka inuu sii wato ciyaarta haddii uu dhiig baxayo waa la diiday xilligaasi ma jirin sharci ciyaarta ka saaraya xidiga oo waxay ahayd garasho oo keliya laakiin ciyaaryahankan marka la sheegay in ciyaartu qudheed 1 litar oo dhiiga uu ugu daatay ayaa waxa ay keeneen kubadda cagta FIFA in la joojiyo haddii ciyaaryahan dhiig ka socdo ma ciyaari karayo kubadda cagta waa waajib in laga saaro adiga ka waran xulkaaga haddii aad u matalaysid intaan ka badan ma u samayn lahayd